maayirka magaalada Boqol Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo sidoo kale maayirka xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Xasan Jaamac Xoday iyo qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boqol ayaa maanta si rasmi ah ugu wareejiyay ciidanka qaranka Somaliland boqol baloodh oo ay ugu tala galeen in la dejiyo dadka degan xerada gaas ee ciidanka qaranka Somaliland ugu horeyntii maayirka xigeenka iyo sidoo kale qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boqol ayaa ka hadlay waxaana kamid ah hadaladoodii sidatan taliyaha gabar ee ciidanka qaranka Somaliland iyo sidoo kale banduulaha qaybta 12aad ee ciidanka qaranka ayaa si rasmi ah uga wareegay mas'uuliyiinta dawladda hoose ee magaalada boqol baloodh ay ugu tala galeen in la dejiyo dadka shacabka ah sidoo kale waxa ay uga mahad celiyeen mas'uuliyiinta boqol baloodh waxaana kamid ah hadaladoodii وعبد الرحمن عيسى GTN TV برعو.